السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت الله igu xiran sideetiin mii fiicantiin xaaladiina ka warama aan weydi wanaagsanahay kusoo dhawaada video cusub saaka ciid bay noo tahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaahay sanadkan sanadkiisa iyo sanado kaloo badanba bashbashii barwaaqa ay nagu gaarsiiyeen insha Allah inagoo caafimaad qabna waxawaaye saaka waxaan kacay 3 habeenimo 3 am baan soo kacay hawlo yaryar oo aan rabay inaan mar hore dhameystiro baanan dhameystirin kuwaasaan iska dhameystiri doonaa quraacdii iidan iska diyaarsan doonaa marka waxawaaye soo dhawaada jikada ugu soo horgalayahay chicken baan soo qaatay chickenkii aan soo jeedaan oo soo jarjarayahay kadibna xawaashiyaan kusoo dardarsaday wixii aan xawaashaystay oo dhan basbaas cas milix saliid waxyaabo badan baan ku dardaray chickenkan isaga ah kadibna waa kaasa chickenkii xawaashidii wixii aan ku dhex qasayaa kadib halkaasaan dhigayaa bahalkan baan ku daboolay si uu chickenka u dhex gasho xawaashidii waxyaabahaas soo cabaar kadib baan kasoo noqon doonaa insha Allah chickenka chickenka meesha markaan kusoo diyaarsaday qolkaan imaaday daahiyadan baa igu xiran qolkayga daahiyadan yaryar dulufka baan rabaa inaan iska bedelo kuwo kale ayaguna dulufan waxba dhaamin inaan ku xiro daahiyada aan ku xiraayo saani u eegyihiin 2 xabo waa shabag waa light pinky 3 xabana waa kuwana waa grey iyo kale sibiri shanta daah baan ku xiri doonaa way kana halkan kursi soo dhigtay daahiyadii horaan ka bedelayaa daaqada waxba masaxaad ma baahna daaqadu 3 cisho ka hor baan iska wada dhisgareeyay guriga dhanba daahiyadii baan kala bedelayaan ku xirayaa cidaan waxawaaye daahiyadii waxyaabahaas ma keer gareeyaan sida wadankii waxaas wadankii daahiyo kaaliska arago kofarlo adduun la xidhaa halkan daahiro masaakiina la xidhaayo lacag badan ba isan kaaga baxaynin waxawaaye qurux yar ku noqonaya marka daahida yar masaakiinta ah ba hadda ku soo xidha ma fahantiin hata birta daahu daaqadun bay korkeeda yar dhaafsiisantay ma u jeedaan daahiyadaas ku soo xirayahay kadibna gii hore sariirtay saarnaa waan ka qaaday gooc cusub oo aan isiri wuxuu u yara eegyahay daahiyaasha baan hadda ku soo xiraya aan ku goglayaa saa u jeedaanba markaan sariirtii goglay 4 barkimaan soo qaatay barkimaan waxay ku fiican yihiin way yar dhaadheer yihiin barkimooyinka caadiga ah dhererkooda maaha balaarka maaha way ka yar dhaadheer yihiin maxaa la dhahay 4 barkimoon baan saari doonaa maanta maxaa la dhahay sariirtayda barkimooyin yar iyo waxaas uguma haysa inaan maanta saaro 4 barkimo 4 gal baan usoo qaaday 2 gal waxay way kaanayaan go'a sariirta 2 galna waxay way kaanayaan xalaafkan sariirta ku gogli doona insha Allah way kana barkimooyinkiya aan galalkii galgalinaya ma fahantiin laakiin jabba wuxuu ka jiraa barkimooyinkan aan galalka cadcad galiyay ma u jeedaan waa khafiif galkoodu galalkan cadcad waa khafiif midabkii hoose ee barkimada laga dhex arkaya maxaa sameyn karaa yani galal kale cadcadno maxaa la dhahay midabkan oo kalena ma hayste waa iskaga daystay hal kale ma jiro maaha waa kaas hadda 2 barkimo walba saasaan isku dul saaray saasaan sariirtii aan barkimooyinkii aan u dul saaray waa kaas barkimooyin yaryar iyo waxaas ma dhigayo sariirtii iskama buuxinayo 4 barkimo iyo mid yar oo maskiin halkaa aan dhex dhigay baan dhigayba kadibna waa kana xalaaf baan soo qaaday sariirtii xalaafkii aan ku goglayaa ma fahantiin videoga hadda halkaas la soo gaarnay fadlan like saara asxaabtiin la sii share gareeyay asxaab sidoo kale u qurux badan ay ugu soo xirmatay insha Allah daawashada videoyadeedana waad ku mahadsantiin waa kaas finally xalaafkii aan goglay saasaan u goglay u jeedaan kadibna waxawaaye cadar baan soo qaadayahay sariirta dhan daahiyada meesha dhan waxawaaye aan cadar iskaga buufiyay kadibna masaxaadeedii aan soo qaatay qolkii saa u jeedaan u masaxaya ma fahantiin sariirta bahal yar baa halkaas saaran ma u jeedaan waxaa la dhahaa throw blanket baan filaa in la dhaho English ahaan iyo flower yarna waan saaray intaasna gadaal baa ka arki doontaan si aan sariirta aan u yara naashnaasho wax kala garan maaye waa kaas qolkii oo dhan iska masaxayahay kadibna waa kana sariirtii finally saanay ku soo baxday iska qurux badan walaalayaal iska qurux badan tahay ma xuma idinku ma xuma iska dhaha waa kaas sariirtii saas waxawaaye aan kusoo gogladay ahayd guriga qolkiina aan kusoo nadiifiyay waxawaaye unsina guriga waa usoo shitay ahayd kadibna albaabka u soo celiyay qolkii saasuu diyaar igu yahay iyo nadiif hadda waxawaaye waxaan sii wadanaynaa cunto karinteeni inaan quraacdii aan degdeg u diyaarsado waxawaaye horta videogan
saan idin sheeg 3 habeennimaan bilaabay inaan duubo laakiin maxaa la dhahay codka waxaan saarayaa hadda waa xilli maqrib ah soo shanqar badan baa iga ag dhacayso waa la eedaamayaa waxyaaba badan baa iska jiro soo iska dulqaata insha allah. Soo haddana jikadiyan dib ugu soo laabtay soo ugu horreyn waxaan sameysanayaa waa shaax soo distiyan dabka soo saartay waxaan kusoo shubtay distida sonkor soo sonkortaasaan dhalaalinayaa shaaxanan sameynayo waxaa la dhahaa caramelized tea soo sonkorta anoona wax biyaa ku darin baa keligeed dhalaalinaya soo sonkorta si aysan iiga gubanin amba distida igaga dhegin waxaan sameynayaa waan walwalaaqayaa kadibna waxa weye dabkana waxaa uga dhigay waa dab yaroo daciifa kadib waa kaasa sonkortii oo dhan baan wada dhalaaliyey sonkortii markii ii wada dhalaashay waxaan kusoo darsanayaa biyo iyo xawaashiyaashii hal xabo hildhigoolaan ani shaaxa waa iskaga karsadaa soo kaasa intana waxaan isku karkariyey biyihii sonkortii iyo xawaashiyaashii markii intaan si fiican isugu soo yara karkarto kadib waxaan kusoo darsaday waxa waaye caano soo waxaan sameeyaa ani caanaha 2 koob aan ka dhigaa biyahana koob caanaha markasta badiyaa soo haddana intana dib isugu yara karkariyey daac markay intii oo dhan isku soo karkartay hadda waxaan kusoo darsanayaa waa shaax madow kadibna dabkaan ka daminayaa shaaxan waa shaax yaro aad iyo aad u macaan oo inaba caadi ahayn wallaahi soo tijaabiya maalmaha wax special jiraan amba marti kuu joogto u sameeya aniga horta gurigeyga weekii 4-5 jeer waan ka sameeyaa shaaxan sababtoo ah husbandkeyga jecel ma fahanteen maalmahan haleeli waayo sax caadi ugu tuuraa maalmaha kalena kan la yara nashnashan sameeyaa ma fahanteen soo shaaxi saasuu diyaar igu noqday waxaan ku shubayahay falaasadii kadibna gees baan iska dhigay haddana distii halkan dabka soo saartay basal yar baan kusoo shiilay kadibna waxaan kusoo darsaday tamaandho waxaan kaloo kusoo darsaday toon intan baan si fiican aan isugu soo shiilo isku jajabiyey oo kaaliska arag ka soo dhigay oo isku soo bisleeyay marka intaan isku soo bislaatay oo ay saan noqotay hadda waxaan kusoo darsanayaa waxa waaye fuul soo fuulka waxaan sameeyey daasad fuul uu ahaa daasada qayb ka mid ah waan soo ridqay qaybna sidiisii caadi u burbuuran tahay soo kaasa qaybtaan soo ridqan ku shubay haddana qaybtii caadiga ahayd oo sidiisa ahayd baa hadda kusoo darsaday kadibna waxaan kusoo darsaday waa xawaashiyaal iyo maxaa la dhahay milix yar iyo basbaas bahaaraadkoo dhan adi iska dhe waan kusoo darsaday wax yaroo biyaana waan ku dareehayn kadib adduunka dhan waan isku walaaqay dabkan ku daayay dee suu usoo yara bislaaday ilaa 15 daqiiqadood soo waan daboolay soo waa kaasa 15 daqiiqo kadib fuulkiisaan buu kusoo baxay yaa diyaar buu yahay soo dabkan ka daminayaa kole waxaa ahaa qofta ugu horeysay oo maalin iideed xaafada fuul u sameysay quraac ahaan ma fahanteen soo waa kaasa fuulkeyga saas buu diyaar igu yahay soo hadda air fryerkan soo qaatay wax yaroo saliidan mariyey kadibna chickenkii aan markii xawaashiyaasha aan ku radinay ma xasuusataan kiin air fryerka hadda aan kusoo shubay kadibna 7 daqiiqadood air fryerka uu chickenkan ku jiray 7 daqiiqo kadib waa kana chickenkii uu soo bislaaday saasna uu soo shiilmay iiraal noqda hadda dhac maqashaan roob da'ay shanqadha roobkii aan halkan ka maqlooya anima ogin idinkeeni soo gaari doonto laakiin soo chickenkii saasuu diyaar igu noqday haddana waxaa sameeyay maqliyaan dabka soo saartay kadibna basal aan sidaas dhuudhuuban oo dhaadheer usoo jarjaray baan kusoo ritay soo basashii baan wax yar saliid saas ugu yara shiilay 1 daqiiqo markaan shiilay baan waxaan kusoo daray barbarooniyaal 3 nooc oo barbarooniyaal oo ayagana si yar dhuudhuuban aan usoo googoostay kadib basashii barbarooniyaashii wax yar dhowr daqiiqadood isku soo shiilay ahayd dhowr daqiiqadood kadibna waxaan kusoo darsaday wax yar oo xawaashiyo wax yar oo micno lahayn oo badnayn oo xawaashiyaan ku darsaday ahayd kadibna haddana iyo toon kadibna haddana dibban intaan isugu shiilay soo markaan muddo isku shiilayay wax walba saana u ekaadeen ma fahanteen basashii wixii dhan way isla dameen way dageen camal way soo shiilmeen kadib baan waxaan kusoo darsaday chickenkan air fryerka kusoo dubnay biyo yarna waan kusoo daray si ay qoyaan u yeeshaan kadibna waa isla yara daboolay dabkana hoos baa u geeyay si isugu yara huuraan kadib dhowr daqiiqadood bay isku soo huureen dhowr daqiiqadood kadib saan bay isla soo baxday cuntadii soo saanay alaabtana ay diyaar iigu tahay alaabtan waa alaab yaro fudud oo macaan oo inaba caadi ahayn waxaa la dhahaa alaabtan haddaa beer haysanin bedelkiis baa la cunaa soo tan waa alaabtan waa bedelkii beerka sidii beerkan u sameeyay ma fahantay wayna macaan tahay soo maadaama anaka oo waxba qalanin waxa waa cidahana shalay tooliya daraa toolo wax fiican oo fresh oo naf la meeniheenin soo saa darteed
chicken baa u bedeshay bani halkii beer lagaga quraacnaa chicken baan ka dhigay chicken aan sidii beerka u sameeyey so waxay chickenkii fuulkii shaaxii diyaar yihiin intaasaan diyaarsaday kadib waa kana soo ququbay soo meedmeedhay salaadii iidkan isku diyaarinayaa so halkan waxa weeye waxa soo dhigtay dresskii aan xiran lahaa so cabaayadan buurdooga sheeladaas adoo alaabta halkan ii taalaan xiran doona cadaradaasna waa cadaradan isku buufin doona ma fahantiin so quraacda iidka inta kale ii yarsan salaada kadib baan insha Allah aan samaysan doona so way kana waan soo labistay ahayd ani reera makeup meeyay labisteedina dhacba isku soo siiyay waan soo baxay waan bixi rabnaa waa 6:15 7 waa la galayaa salaada marka waa kaas ciid mubaarak baa idin leeyahay kolay idinka shalay baa iideen oo arbaca ahayd anaga laakiin maanta khamiisan iidina ma fahantiin hindiyaan joogaa marka hindi way ka dambaysaa adduunka maalintuu ciido maalinta ku xigay ciida so waa kaas husbandkii aan soo raacay mootadan aan soo kaxaysanay u soo ordaynay masaajidkii aan soo galay halkan aan hadda kursi dul fadhiyaa wali salaadi lama gelin waa kana masaajidkii aan soo galay dad badan ma joogaan waa kaas salaadii aan sugaynay ciid wanaagsan baa idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba yaa ciid mubaarak dhammaantiin so finally waan soo tukanay salaadkii ciidka alxamdulillah kadibna waa kasoo baxnay anaka tabaqa koobaad ba salaada ku tukanaa hoosna wiilasha ku tukado so kaas dadkii oo dhan salaadii ka soo baxeen meelahan tagtaagan yihiin sawira la galgalaya anakana qaybta saraan sawirada ku galgalinaa ma fahanteen so kaas aan ciid ilama soconin oo sawir istaag iga qaad laakiin selfie iskala daalay so kaas markaan sawiradii wixii soo dhameysanay gurigii aan dib ugu soo laabanay ma fahanteen so quraacdii aan dhameystiray ahayd kadibna miiskan kusoo diyaariyay quraacdii so kana halkan liin orange aan kusoo shiidaa ku jirto halkan waxaan soo dhigay waxa waaye cinab halkan waxaa cinab ii yaala halkan waxa ii yaala waa fuulkii on korka cream yar kaga soo darsaday ma fahanteen ay halkan igu jiro halkan waxa igu jiro waxa waaye beer lamood magac kale uma hayo maanta beer lamood baa igu jiro halkan waxa igu jirto 3 xabadood oo prata ah amba chapati ku basaw taqaanaan iyo rooti aan soo diirdiiriyay ma fahanteen waan isleeyahay qofban wuxuu rabo ha ku cuno ma fahanteen baa igu jirta shaaxiina halkaasaan soo dhigtay so wataas quraacdina waa quraac yar iska fudud oo iska simbala oo macaan ma fahanteen so waa kaas maanta anaga saas u ciidnay so waa kaas fiidiyoga gabagabadiisii aan joognaa waxaan idin leeyahay intaan fiidiyoga ku xiga ka kulmayno bye ciid wanaagsan fiidiyogana like iyo share ka iloobina bye see you soon